السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيادة قيمة خيالة كحرن دار السلام أكاديمي وكورس عصب أو فري تاسع أن أتلقلنا دمان ديوغو تشعل إنا برتان لقد إنجليشكا كورس كام حالي هذا إنجليش كورس بيجنر وحنا صعدنا مدة أسبوعة سيدو كلا مدة أسبوعة أو كورس كان صعدوا وحن رجين دونا إن كود فايدة سجلنا أنيجا يدين كوبا وحد كلا صعد كرتان دار السلام أكاديمي sidoo kale waxaan la socodsi doonaa oo cashirkan lecture ka ah anigu Cabdiqaadir Cali Guuleed waxaan filayaa inaad fahmi doontaan isla markaan isla socon doono isla jan qaadi doono hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaal noqdo inta aan cashirkan bilaabin ka hor waxa jira xog yar raba in idin la wadaago xogahaas oo ah inaad ugu horreyn aad booqataan page-ka Dar es Salaam Academy isla markaan like iyo follow aad saartaan tan labaad oo ah in aad wixii warbixin iyo xoga u baahan tahay halkaas ka ogaan doonto qodobka labaad wuxuu yahay inta aan koorskan wadno usbuuca waxa jiri doona in cashir walba aan soo dhigo oo la socon doono wax la yiraahdo homework ama shaqo guri shaqada guri aan dirayo ugu madan lihi in ay tahay wax aqwad aqwa balse waxaan rabaa inaan ogaado fahamka iyo waliba isla socodka aniga iyo ardayda ama dadyoga la socda xiisadan ay ku tixan ay iga codsaday in ay koorskan free ah aan bilaabo oo waliba ah beginner bilow aan ku soo bilaabi doono aas ugu horeeyay English waxa kale oo jira classroom waxa kale oo jira Gmail waxa kale oo jira qaybta hoose commentiga qofkii doonaya in uu ka qayb qaato isla markaana ka mid noqdo baahda iyo saaxiibka ku xiran Dar es Salaam Academy waxa jira wax la yiraahdo classroom taasi oo ah qaab online wax ku baratay horta inta aan wax warbixin idin siinin aan idin sheego horta Dar es Salaam Academy waxay qabato waxa tahay laba hab ay wax u bartaa ardayda qayb ah offline iyo qayb ah online inta badan dadka waxay sheegaan in waqtiga aad ugu cariiriya balse Dar es Salaam Academy way ku fududeysay oo hadda cashirka waxa la soo gelinaya waqti laga yaabo waqtiga aad heshid inaad dib u fiiriso oo markaan aad la socoto waxa kale oo dhici doonta in aysan maalin baaqadoon cashirada oo maalin walba ama everything ama every day la soo gelin doono la soo dhigi doono classroom-ka iyo page-ka waxa kale oo ku jira doona galaasyo free ah oo wax lacag iyo wax aan laga rabin isla markaana aad ku qaadanaysid wax walba oo baahan sidoo kale waxa jira in ay caawiso ardayda dhigta jaamacadaha kuwa dhigta iskuulada sidoo kale waxa jira doona koorso ee bixis ayaa jira waxa kale oo jira horeen Dar es Salaam Academy hadafkeedu wuxuu yahay ama sababta loo asaasay in laga barto wax la yiraahdo xirfad theory iyo xirfad waa laba shay oo kala duwan theory waa wax qoran oo qoraal ah taasi oo kaga baahan xifdin balse u baahan kaliya faham balse skills-ka ama xirfadda wax la yiraahdo waxay kaga baahan tahay faham iyo waliba xifdin marka hadafka ugu horeeya loo asaasay akademiyadan ayaa in ardayda la baro xirfad waa inaad leedahay xirfad waxaad arkaysaa arday badan oo dhamay jaamacadaha iyo waliba shahadooyin sita markaan shaqo la'aan ka caawinaya ama ka caawinaya xitaa in aysan lahayn wax xirfad ah balse ay hayaan isla markaan haystaan shahadooyin aad u sarsareeya akademiyadan waxay ka caawinaysaa inaad hesho xirfad waxa kale oo bixinaa koorsiyo badan halka loo soo koobi karo waxaan kale ku soo qaadan doonaa muuqaal kale ayaan idin soo dhigi doonaa taasi oo aan ugu hadlayno waxyaabaha aan bixino waxa halkan kugu diyaar macallimiin tayo leh isla markaana diyaar u ah arkay baahida iyo waxyaabaha u baahan yihiin walaalahooda iyo waliba dadkooda Soomaaliyeed ee qaasatan dadka doonaya in ay waxbarashada ama education-ka ku biiraan ama hore ugu jira ee raba in ay hami ka sare ka gaaraan inaga hadafkeenu wuxuu yahay inaad hesho xirfad inta ku goojino koorskan aan dib ugu soo noqon cashirkeena inta ku goojino koorskan waxaa jira doona laba shuruucda koowaad ah in aad cashirka walba aan bixiyo aad dib u qorto isla markaana ka soo shaqeyso homework ama shaqo guriga lagu diray tan labaad shaqo guriga lagu diray waa in aad ii soo dirtaa oo aad igu soo dirtaa qaybta hoose commentiga ama Gmail ayaa jira qofkii doonaya in uu ka qayb qaadsana waxa jira classroom waxa jira arday ku goojira classroom-kaasi oo kala nool gobolada dalka isla markaana doonaya inay ka faa'iideystaan inta aan ku goojino classroom-kaas wax Soomaali ah lagu hadli doono wax luqad Soomaali ah isku ma hadli doono balse waxaan ku wada xiriiri doonaa English
adigu waxaan su'aal kugu weydiin doonaa English waxaad iigu jawaabi doontaa su'aashaas jawaabteedu waxay noqon doontaa English aynu noqono dadka wada faa'iideysta course inta socda aniga iyo idinkuba waxa kale oo jira course-ka gaaban kuwaasi oo aan bixinayno oo ah si free aan u bixinayno si aan ugu faa'iideyno ardaydeena iyo walaalaheena Soomaaliyeed shirkan dib ugu soo noqon English course beginner course English waxaan ku baran doonaa wax la English alphabets ama xarufta Englishka markii aan leenahay way qayb badan tahay oo waxay ka kooban tahay 26 xaraf anagoon u kala qaado doona laba qaybood ugu dambeyn soo gabagabay doona English alphabets xarufta Englishka waa A iyo B iyo C iyo D E E F E G E H E I E J E K E L E M N O P Q R S T U V W X Y Z intaas waxa la isku yiraahdaa English alphabets waa A to Z ama A ka soo bilaabaysa ilaa Z waa 26 xaraf waxaan la yiraahdaa English alphabets ku cilmi badan igama baahna maxaa yeelay waxaan waa video qofkii u baahan dib ayuu ugu ceshan karaa muuqaalka aan hore u socono wili waxaan go'an English alphabets waliba qaybtiisii koowaad ah consonants shibanayaal aamusnayaal ma dhawaaqayaal dhowr macno ay yeelan kartaa consonantskan waa qayb kamid alphabetska balse waa laga soo dhex soocay wax loo soo dhex soocaya waxay tahay waa dareemi kartaa farqiga u dhaxeeya English alphabetska ama alphabetka Englishka iyo consonantska farqiga u dhaxeeya waxay tahay English alphabetskan ama consonantska waxay ka kooban yihiin 22 halka English alphabetska ay ka koobnaan 26 xaraf waa B E C E D E F E G E H E J E K E L M N P Q R S T V W X Y Z waa A B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z intaas waxa la isku yiraahdaa consonants ama shibanayaal qaybta labaad waxa weeye vowels waa shaqalo vowels kan waxay ka kooban yihiin xaruf waa A E E I E O E U A E I O U waxa la isku yiraahdaa vowels waa shaqalo lesson 1 cashirkeen koowaad waxaan ku qaadan doonaa things in the classroom shay'aasha laga dhaxlo ama ku dhex jira fasalka waxa kamid ah a book a pen a table a eraser blackboard a book waa book a pen waa qalin a table waa miis eraser waa tirtiraha loo isticmaalo sabuurada blackboardna waa isla sabuuradii laftarkeedii what is this this is a book this is a book what is that that's a table that is a table what is this kani waa maxay ama waa maxay kani what is this kani waa maxay ama waa maxay kani what is that kaas waa maxay ama waa maxay kaasi muddo doonta ay soo kartaa ama dhigi kartaa waa maxay kaasi ama kaasi waa maxay afwan this is a book kani waa book kani waa book that is a table kaasi waa miis oo labadan farqi u dhaxeeya waxay tahay that iyo this waxay tilmaamaysaa wax ku dhow halka that ay tilmaamayso wax ka fog waa farqi u dhaxeeya kan midku wax ku dhow iyo wax ka fog homework waxa la yiraahdaa shaqo guri waa taqaanaa waayo waxyaabihii aan ka hadlaynay oo ku soo qaadan horay waxaan filayaa inaad ka shaqeyn doontaan intaan waa jumladahan u badal English ama qoraaladan halkan ku qoran waxa ka dhigta English book maxaa English lagu dhahaa qalin maxaa English lagu dhahaa miis maxaa English lagu dhahaa tirtir maxaa English lagu dhahaa sabuurad maxaa English lagu dhahaa insaan adiga laga baahan yahay kani waa maxay ama waa maxay kani waa isla meeshii kaasi waa maxay ama waa maxay kaasi isna isla meeshii waxaan filayaa in aad cashirka fahanteen si markaana aad ku shaqeyn doontaan shaqo guridan intaasay horta ku iga jabtarkeeni wax ka dambeeya malahan marka balse hal talo ayaan ku soo jeedinaya hal comment talada waxay tahay in aan ka wada faa'iideysan cashirkan isla markaana aan noqono dad xirfad leh tan commentiga ayaa waxay tahay waxaan ka codsanayaa inaad qaybta hoose comment igu soo qortaan sharaxadeeda qaabka ay tahay ma wax baan ka bedelaa oo boobtis aan ku sharxayaa mise sida tan aan ku wado waa okay oo aan ku socon karnaa oo dhammaan ku wada fahmi karnaa maadaama xiisad oo tahay xiisad online aysan ahayn xiisad offline oo fasalka aan wada fadhino taasi oo mar walba dhici karta in aan xiriirka ama communication ka dhaxmaray oo noqdo mid toos ah halka kani oo ka duwan yahay oo noqon doono indirect communication ama communication aan toos ahayn marka haddii ay jiraan xogaa wax boobtis ah ama cashirka sharaxaadiisa oo faham la'aan ah waxbaa ka bedeli doona insha Allah haddii ay sidaan okay tahay aan ku socon karno ama markaana aan ku wadi karnana idinka xaqiina waan ku wada doona insha Allah